maalin maalmaha ka mid a gabadh yar oo lagu magacaabo Jennifer ayaa waxay ahayd mid qolkeeda hurda. Sikadiisana waxay ka soo toostay hurdadii waxayna isaragtay iyadoo qof kale gacanta ugu jirta. Qofkaasina wuxuu ahaa mid gabadhan yar gacmaha ku qaatay oo ordaya. Dabcan Jennifer waqtigaas waxay isku dayday inay qayliso, laakiin qofkaas qaatay afka ayuu qabtay. Intaa kadib dhegteeda ayuu hadal u saaray wuxuuna ku yidhi waxaan ahay ciidan, wuxuuna ka codsaday inay istajiso, isagoo sheegay inay wanaagsanaan doonaan dhammaan arrimuhu. Jennifer waxay ahayd gabadh yar weyna iska rumaysatay hadalkiisii, waxayna islahayd ninkani waa ninku ilaalinaya, laakiin miskiinadani waxay ogaan doontaa in ninkaasi uu khiyaamay oo uu dhib weyn u geysan doono. muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa qisada gabadha lagu magacaabo Jennifer oo ah qiso aad u la yaab badan. waxay ka bilaabanaysaa qiso sanadkii 1982 waqtigaas oo ay dhashay gabadhan oo lagu magacaabo Ellen ilmaheedii koowaad oo gabadh ahayd waxayna ku magacawday Jennifer. dabcan wax wara lagama sheegin aabbaha dhalay gabadhan, lamana sheegin in hooyadu ay ahayd single mother iyo in kale. markaa waxba kama ogin aabba qoyskan, laakiin waxaynu ognahay in aabba qoyskan aanu la noolayn qoyskan. si kastaba ahaatee hooyadan Ellen waxay ahayd mid si weyn u daryeesha gabadheeda, waxayna isku dayi jirtay inay ka farxisay inta karaankeeda. labadoodana waxay ku wada noolaayeen nolol caadiya. waxay ku noolaayeen gurigaasna waxaa ku yaalay 2 qol oo ay kala lahaayeen hooyada iyo gabadheeda yari. laakiin Jennifer waxay ahayd mid ka cabsata madowga ama mugdiga, sidaa darteed way ka baqi jirtay inay kaligeed seexato, inta badanna waxay la seexan jirtay hooyadeed. laakiin maalmaha qaar hooyadu waxay shaqada aadi jirtay waqti hore, sidaa darteed waxay ku qasbi jirtay inanteeda yar inay qolkeeda seexato, si marka ay toosteedu xilli hore aanay gabadheeda yar hurdada uga qasin. taariikhdu maalintii ahayd 9 bishii 8 ee sanadkii 1990. Ellen maalintaas waxay aadaysay xilli hore shaqada, waxayna ku qancisay habeenkii gabadheedii Jennifer inay qolkeeda seexato. Jenniferna way ogolaatay waxayna aaday qolkeedii. marka ay sii socotayna waxay ku tiri hooyadeed waxaan u ogolaaday warkaaga sababtaa waan ku jeclahay. hadalkaasina wuxuu noqon doonaa hadalkii ugu dambeeyay ee gabadheeda ay ka maqasho. maalintii ku xigtay Ellen waxay toostay xilli hore, waxayna u diyaargarowday shaqadeedii. laakiin ka hor intaanay ka bixin gurigii waxay u gashay qolkii gabadheeda si ay u sii aragtay inanteeda. marka albaabkii furtayna waxay ku naxday inaanay Jennifer meesha joogin. waqtigaasna Jennifer da'deedu waxay ahayd 8 sannadood oo keliya. gabadhan yarna may dhicin hore inay weligeed guriga keligeed ka baxday. sidoo kale Jennifer hooyadeed waxay aragtay in daaqadda qolku ay furan tahay. markana waxay garowsatay Jennifer hooyadeed in gabadheedii yaray la afduubtay, waxayna la xidhiidhay ciidankii oo ay gaadhsiisay warkii. waqti yar kadibna ciidankii waxay soo gaadheen goobtii, waxayna sheegeen in suurtagalnimada in la afduubtay Jennifer inay aad u weyn tahay, sidaa darteed waxay ku qasbanayeen ciidanku inay si degdeg ah u bilaabaan baadhitaanada. may garanayn meel ay kaga bilaabaan baadhitaanka, waqtina may ahayn oo waxay ahayd inay sida ugu dhaqsaa badan u bilaabaan. waxayna bilaabeen baadhitaanadii. waqtigiina wuu socday, gabadhii yarayd ee Jenniferna weli way maqan tahay. dhowr saacadood kadibna saldhiggii ciidanka waxaa soo gaadhay dhowr wicitaan. wicitaanadanna waxay ka imanayeen dad sheegaya inay ku arkeen meydka gabadh yar oo dhex yaalla beer dhexdeed. ciidankiina markiiba way garteen in meydkaas ay dadkani heleen uu yahay meydka gabadhii yarayd ee Jennifer, waxayna isdhaheen ninkii afduubta ayaa farax xumeeyey kadibna dilay oo meesha ku tuuray. arrinkuna wuxuu ahaa mid murugo iyo naxdin badan. Jennifer hooyadeedna waxay ku jirtay xaalad murugo iyo quusa, laakiin ciidankii markii ay meeshii soo gaadheen waxay heleen Jennifer oo nool, laakiin waxa ku yaalay gabadha dhaawacyo xunxun. qoorteeda ayaa ahayd mid la jeexay, laakiin nasiib wanaag gabadha yar weli way noolayd. si degdeg ayaana loogu yeedhay helikobtar oo lagu qaaday gabadhii yarayd, waxaana loo qaaday cisbitaalka ugu dhow. xaaladda Jennifer waxay ahayd mid aad u halis badan, oo sidaan idiin soo sheegay waxaa laga jeexay qoorta, waxaana ka baxay gabadha yar dhiig badan. sida loogu talagalay ama ciddii sidan yeeshay ugu talagashayna waxay ahayd inay dhimato, laakiin jawiga ayaa ahaa mid aad u qabow. ninka afduubtayna wuxuu dhex dhigay beer ay ku nooshahay quraanjo. sidoo kale cidda afduubatay may jarin gabadhan yar halbowle weyn. waxyaabahaas ayaa ka caawiyay inay noloshii kusii baaqi ahaato, laakiin xaaladdeedu waxay ahayd mid halis oo quus u dhow. dhakhaatiirtii inta badanna waxay aaminsanayeen inaanay badbaadi doonin, oo dhuunta hawada ayaa go'day gabadha yar. sidoo kale xadhkaha codka ee qoorta ku yaala ayaa iyaguna go'ay, waxaana ku yaalay dhaawacyo waaweyn.
waxaana loo arkayay in gabadh yar oo 8 jir aanay ka kici doonin dhaawacyada intaas leeg. si kastaba haatee waxaa la geliyay gabadhii yareyd qolka qalliimada. bilowgiina waxay isku dayeen inay ka istaajiyaan dhiigga. ma hadda ilaahayna qalliinkii waa lagu guulaystay waxaana laga soo saaray qolkii qalliinka Jennifer iyadoo nool, laakiin waxaa lagu hayay cisbitaalkii inta ay bogsanayso. maalintii ku xigtayna ciidankii waxay bilaabeen inay su'aalo weydiiyaan gabadhii yareyd. waxay rabeen inay ogaadaan cidda uu yahay dambiilaha waxaan sameeyey si degdegana ay u soo qabtaan. laakiin Jennifer waxay ahayd mid ragga oo dhan ka cabsanaysa, kumanay kalsoonayn ragga oo dhan, ilaa xaday gaadheen inay beddelaan dhakhaatiirtii daaweynaysay oo dhan oo ay ku beddelaan dhakhaatiir wada dumar ah. dhibaatada kale ay wajahayeen waxay ahayd Jennifer waxay weyday codkeedii oo xadhkiyo codka intoodii badnaa way go'een manay hadli karin. sidaa darteed xalka keliya ay haysteen wuxuu ahaa inay kula xidhiidhaan qoraal. sidoo kale ciidankii waxay kaashadeen hooyadeed. ciidankuna way weydiinayaan su'aasha, Jenniferna waxay ugu jawaabaysaa qoraal. kadibna hooyadeed ayaa ka soo qaadaysa jawaabta oo ciidanka u dhiibaysa. sidaasayna ku socdeen oo ay ku wadeen arrinta. dabcan Jennifer waxay uga warantay ciidankii xoga ku saabsan ninkii afduubtay. waxay uga warantay in magaciisu uu yahay Dennis, wejigiisana uu kaga yaalay calaamad nabar oo kale ah. sidoo kalena waxay sheegtay in sigaar iyo dhal khamriga ay saarnaayeen gaadhigiisa. dabcan waxyaabaani faa'iido may lahayn ciidanka, oo may garanayn gabadha yar afduubtaa magaciisa oo dhammaystiran, manay garanayn nooca uu yahay gaadhigiisa iyo taarikadiisuba. waxyaabahaas faa'iidada lama ogeyn gabadha yari. sidaa darteed waxay weydiiyeen inay xasuusato wejigii ninkii afduubtay sida uu ahaa. waxayna u sheegtay Jennifer inay xasuusan tahay qaabka uu ekaa wejigiisu. ciidankiina waxay u yeedheen gabadh sawirada gacanta sawirta. gabadhaasina waxay ag fadhiisatay Jennifer waxayna bilowday inay sawirta ninka afduubtay iyadoo ka tilmaan raacaysa tilmaamaha ay bixinaysa Jennifer. Jenniferna waxay ku tilmaamaysay qoraal oo way qoraysay, gabadha sawiraysana tilmaantaas ayay ka sawiraysay. ugu dambeynna waxay ka soo saareen tilmaamihii sawirkanna maskaxda ku haya waxayn ku soo laaban doonaa dhammaadka qisada. ciidankii waxay soo qaadeen sawirkii laga sawiray dambiilaha waxayna ku soo faafiyeen warbaahinta iyo joornaalada. sidoo kale waxaa lagu dhejiyey sawiradiisii meel walba, waxayna ka dalbanayeen dadka inay ka caawiyaan kiiskan, laakiin ninkii weli waa mid maqan oo lama hayo. dhakhaatiirtii iyaguna waxay la tacaalayeen gabadhii yareyd oo waxay isku dayeen inay codkeedii u soo celiyaan. dabcan arrinku wuxuu ahaa mid adag. anigu dhakhtar ma ihi oo wax badan kama ogi arrimahan, laakiin meelahan ka soo qaaday qisadan waxaa lagu sheegay in dhakhaatiirta ay sheegeen in soo noqoshada inuu soo noqdo codkii Jennifer uu ahaa arrin aan caqligal ahayn. laakiin dhakhaatiirtii ismay dhiibin oo way dadaaleen ilaa ay ku guulaysteen inay codkeedii u soo celiyaan gabadhii yareyd. wayna la yaabeen arrinkaas dhakhaatiirtii oo way rumaysan waayeen in arrinkani uu dhacay. si kastaba haatee Jennifer waxay dib u heshay codkeedii, waxayna sidoo kale dib u heshay qayb weyn oo caafimaadkeediiya. waxayna awood u yeelatay inay hadasho oo ay ciidankii uga waranto dhacdooyinkii dhacay. iminkana aan ka ogaana qisada Jennifer afkeeda iyo sida iyadu u sheegtay. Jennifer waxay sheegtay in markaa ay ka soo baxday habeenkaas qolkii hooyadeed inay soo gashay qolkeedii oo ay albaabkii soo xidhatay. waxayna sheegtay inay cabsan jirtay markasta oo ay keligeed seexato, laakiin markan cabsida ay dareemaysay waxay ahayd mid aad u weyn. waxayna shidatay nalkii qolkeeda oo way seexatay. markii wakhtigu uu ahaa habeenka bartamihiisii ayaa waxay dareentay Jennifer dhaqdhaqaaq, indhihayana kala qaaday waxayna aragtay nin gacmaha ku sito oo la cararaya. Jennifer way la yaabtay manay fahmin waxa dhacaya, waxayna bilowday inay qayliso, laakiin ninkaas sitay wuxuu qabtay afkii wuxuuna ku yidhi waxaan nahay ciidan. Jennifer waxay taqaanay in ciidanku ay yihiin dad wanaagsan, sidaa darteed way iska aamintay wayna isdejisay. ninkaasina wuu cararayay ilaa uu gaadhigiisii gaadhay, kadibna wuxuu korsiiyey gaadhigii wuuna kaxeeyey. wuxuuna waday gaadhigii ilaa uu gaadhay meel baarkina. kadibna wuxuu ku yidhi gabadhii yareyd halkan ayaan ku sugaynaa hooyada inta ay ka imanayso oo ay ku qaadanayso. wakhtigaasna Jennifer waxa maskaxdeeda ku jiray su'aalo badan. waxay rabtay inay ogaato meesha hooyadeed ay joogto iyo sababta hooyadeed ay ninkan ugu soo dhiibtay. su'aalo badan ay isweydiinaysay gabadha yari, laakiin wakhtigaas waxay dareemaysay cabsi weyn. cabsidaasay dareemaysay darteedna may awoodin inay ninkan su'aalahaas weydiiso. si kastaba haatee ninkaasi wuxuu istaajiyey gaadhigii wuxuuna bilaabay inuu sigaar iyo khamri cabo. gabadhii yareydna waxay ahayd mid sugaysa hooyadeed, laakiin wakhtiga ayaa socday hooyadeedna may iman. intaa kadib ninkii wuxuu kaxeeyey gaadhigii, wuxuuna ku yidhi gabadhii yareyd hooyadaa ma imanayso.
markana Jennifer waxay weydiisay ninkii su'aashii koowaad oo ahayd magaciisa wuxuuna u sheegay in magaciisu uu yahay Dennis waxayna weydiisay sidoo kale muxuu xidhan waayay maryaa ciidanka wuxuuna u sheegay inuu yahay askari dharcada kadib waxay weydiisay baaskooladiisii iyo calaamadiisii ciidanka wuxuuna ku yidhi waxay saaran yihiin kursiga dambe wuxuuna weydiiyay inay rabto inay aragto baaskoolada iyo calaamadda ciidanka Jenniferna waxay tiri haa waan rabaa inaan arko Dennisna wuxuu istaajiyay gaadhigii wuxuuna u sheegay inay kursiga dambe fuusho kadibna wuu soo wareegay wuuna faraxumeeyay gabadhii yarayd waa arrin laga naxo arrinkani ninkaasina kuma istaagin halkan laakiin intaa kadib wuxuu ka saaray midi qoorta wuuna ku jeexay gabadhii yarayd Jennifer waqtigaas waxay weyday miyirkii ninkiina wuxuu u maleeyay inay dhimatay gaadhiga ayuuna ka soo dejiyay kadibna wuxuu dhex dhigay mid ka mida beeraha wuuna kaga tegay meeshii waxay ahayd mid miyir daboolantay laakiin dhimashada waxba umay jirin laakiin nasiib wanaaggeeda ninkaasi wuxuu dhex dhigay beer ay ku nooshahay quraanjadaasina waxay ahayd mid qanqaniinaysa gabadhan yar qaniyadeeda darteedna arrinkaasi wuxuu ka toosinayay oo uu ka kicinayay koomada markastoo ay koomada ku noqotana waxay ku kacaysay qaniyada quraanjada waxayna ahayd mid arkaysa wax kasta oo agteeda ah geedaha iyo gawaadhida agteeda maraya way arkaysay wayna maqlaysay dabcan Jennifer waxay isku dayday inay qayliso laakiin may awoodin gacanteediina waxay saartay qoorteedii waxayna aragtay in qoorteedu ay jeexan tahay halkeedii ayna iska jiiftay oo awood may lahayn inay dhaqaaqdo ama ay wax kala samayso waxayna sheegtay in waqtigaas ay dareemaysay intana ay tahay dhammaadkeedii oo ay dhimanayso dhab ahaantii waa arrin murugo leh si kastaba ahaatee Jennifer waxay sheegtay saacada kadib inay maqashay codka carruur ku ciyaaraysa agteeda waxayna sheegtay inay ku haminaysay in carruurtaasi ay arkaan mid ka mid a carruurtii ayaana u soo cararay dhankii beerta oo ku kufay gabadha lugteedii wuxuuna arkay gabadhan meesha jiifta arrinkiina wuxuu uga warramay saaxiibadiisa ay wada ciyaarayeen carruurtiina mid kastaaba wuxuu tegay gurigoodii wuxuuna uga warramay arrinkii qoysaskiina waxay la soo xidhiidhaan ciidankii sidaasayna ciidankii ku ogaadeen Jennifer meesha ay ku sugan tahay dabcan dhacdooyinka dhacay intan kadibna waan idinka soo warramay intii baadhitaanadu socdeenna Jennifer waxay u sheegtay ciidankii in sawirkan laga sawiray tilmaamaa dambiiluhu inuu aad ugu eg yahay oo uu si weyn u shabaho dambiilihii ciidankii waxay sii wadeen baadhitaankii waxayna baadhayeen caddeyn u ogolaanaysa inay helaan dambiilahaas maalmuhuna way soconayeen iyadoo dambiilihii aan weli la helin dabcan ciidankii waxay heleen qaar ka mida maryihii uu lahaa dambiiluhu laakiin waqtigaas maryahaasi wax faa'iida umay lahayn baadhitaanada waqtigaasna gabadhii Jennifer iyaduna waxay ka bogsatay nabaradii soo gaadhay waxayna ka soo baxday cisbitaalkii intaa kadibna waxay ku laabatay iskuulkii waxayna dib u bilowday inay nolosheedii si caadi ah ugu noolaato dabcan waqtigaasna waxay ku dhex sugnayd ilaalinta ciidanka oo ciidanka ayaa ahaa qaar ilaalinaya meel kastoo ay aado iyadoo laga filinayo weerar kale inuu ku soo qaado ninkii gabadha yar afduubtay laakiin waxa socday sanado walina dambiilihii wax raada uu leeyahay lagama hayo waqti kadibna dambibaadhayaashii waxay bilaabeen inay iska fududaystaan kiiska afduubka Jenniferna wuxuu noqday mid la iska daayay Jennifer iyaduna waxay ku laabatay nolosheedii dabiiciga ahayd laakiin weli waxay ahayd mid cabsi dareentay waxayna ka cabsan jirtay inay kali ku ahaato meelna xitaa guriga dhexdiisa waxay ahayd mid ka cabsanaysa inay kaligeed joogto laakiin noloshii way socotay Jenniferna way weynaatay kadib 10 sannadood dhacdadii dhacdayna Jennifer waxay ka qalin jabisay iskuulkii intaa kadibna waxay gashay jaamacaddii iyadoo halkaasna ay isku barteen ninkan oo lagu magacaabo Jonathan Jenniferna waxay u sheegtay ninkaas dhacdadii ku dhacday isaguna wuu la murugooday arrinkanna muu saamayn xidhiidhkoodii taa cagsigeedana xidhiidhkoodii wuu sii xoogaystayba wayna isjeclaadeen oo xidhiidhkoodii wuxuu noqday mid sii weynaada sanadkii 2004 Jennifer waxay ka baxday jaamacaddii hal sano kadib oo ahay sanadkii 2005 Jonathan iyo Jennifer way isguursadeen waxayna ku wada noolaayeen nolol wanaagsan labadoodu arrimuhuna waxay u socdeen qaab wanaagsan sanadkii 2008 oo ah 18 sannadood kadib dhacdadii Jennifer waxa soo gaadhay wicitaankaasina wuxuu uga yimid nin lagu magacaabo tiimkanna wuxuu ahaa dambibaadhe ciidanka ka socda wuxuuna u sheegay Jennifer in dawladdu ay u xil saartay inay xaliyaan kiisaska cakiran ee la xallin kari waayo oo uu arkay kiiskeeda uuna aaminsan yahay horumarka tiknoolajiyadeed ee la gaadhay dartii in hadda la xallin karo kiiskeeda wayna kulmeen labadoodii markii kulankaasi uu dhammaadayna dambibaadhi uu la yaabanaa xasuusta Jennifer wuxuuna sheegay inay si weyn u xasuusan tahay wax kasta oo dhacay maalintaas
si kastaba ha ahaatee dambi baadhatii markii uu dib u baadhay faylka gabadhan wuxuu arkay in kiiskeedu uu yahayba mid uu fudud yahay xalintiisu wuxuuna soo qaaday maryihii ciidanku ay heleen markii ay baadhitaanada wadeen wuxuuna u diray meesha lagu baadho DNA-yada maryahaas DNA-ga laga baadhay dartoodna waxay awoodeen inay ka ogaadaan shakhsiyadda dambiilaha DNA-gaas laga helay maryahanna waxaa laga raadiyey DNA-yada hore ugu rikoodh garaysnaa dowladda arrinkuna wuxuu qaatay wakhti dheer oo gaadhaysa 1 sano laakiin ugu dambeyn waxay ku guulaysteen inay helaan dambiilahan oo magaciisu ahaa Dennis Bradford iminkana aan isla ogaana dambiilahani cidda uu yahay oo aan isla ogaana sida uu ku awooday inuu afduubta Jennifer Dennis Bradford waa nin Maraykana wakhtiga ay dhacday dhacdadii afduubka ahayd ee gabadha yar la afduubtayna da'diisu waxay ahayd 39 jir arrinka la yaab kalena wuxuu yahay wuxuu ku noolaa ninkani meel u dhow guriga ay Jennifer deganayd arrinkanna waa arrin iga yaabiyey aniga maadaama uu ninkan agtooda deganaa sidayba u ogaan waayeen inuu isaga yahay dambiiluhu xitaa jaarkoodii maxay u aqoonsan waayeen ninkan sababtoo ah sawirka laga sawiray ninkaasi wuxuu ahaa mid aad uga eg ninkan mooy sababta ninkan markiiba loo ogaan waayey weliba iyadoo sawirka laga sawiray ee gabadha yar ay tilmaantayna uu aad ugu ekaa laakiin haddii aan ku laabano ninkan sheekadiisa ninkan lagu magacaabo Dennis wuxuu iskaga noolaa nolol caadiya wuxuu lahaa xaas wuxuuna dhalay carruur wuxuuna ahaa mid shaqeeya markii arrinkan uu sameeyey ee Jennifer uu afduubtay kadibna uu ku soo laabtay gurigiisii wuxuu aaminsanaa inuu Jennifer dilay wuxuuna aaminsanaa sidoo kale inaan la ogaan doonin sidaa darteed wuxuu iskaga sii watay noloshiisii si dabiiciya sidii qof aan waxba samayn oo kale maalin maalmaha ka midana Dennis wuxuu galay dembi kale oo wuxuu weeraray gabadh kale dembigaas dartiina wuxuu galay Dennis xabsiga sidaasna ciidankii waxay ku awoodeen inay ka qaadaan DNA-giisii oo ay rikoodh gareeyaan sanadkii 2009kiina Dennis wuxuu ka soo baxay xabsigii wuxuuna dib u helay xorriyaddiisii laakiin xorriyaddaas waxay sii socotay 6 bilood oo dambe oo waxa lagu soo eedeeyey markii DNA-giisii la baadhay dembiga afduubka iyo ku xadgudubka iyo sidoo kale isku dayga dil ee uu geystay Jennifer sidaa darteed ninkii Dennis mar labaad ayaa la soo xidhay waxaana la soo xidhay ninkan kadib 19 sannadood dacdadii afduub intii baadhitaanka lagu wadayna Dennis wuu inkiray dhammaan eedaymihii lagu soo eedeeyey wuxuuna sheegay inuu garanayo gabadhaas yar ee lagu magacaabo Jennifer oo uu ka arkay sawiradeeda wararka iyo waraaqa lagu soo dhajiyey wadooyinka arrinkeedana uu aad uga naxay leexad uu gaadhay inuu u duceeyo inuu Ilaahay u soo celiyo qoyskeeda iyadoo nabad qabta Dennis ma ogeen in gabadhii yareed ee Jennifer ay weli nooshahay laakiin dambi baadhayaasha ayaa u sheegay warkaya in Jennifer ay badbaaday sidaa darteedna Dennis oohin ayuu la dhacay isagoo lamay nooshahay weli gabadhii yareed She's alive. Yes, she's alive. She's alive. Don't tell the truth right now. intaa kadibna wuxuu bilaabay inuu uga warramo waxa dhacay habeenkaas ciidankii Dennis wuxuu sheegay in aanu hore u sii qorshayn afduubkan uu sameeyey maskaxdiisana aanu ku hayn maalintaas inuu cid afduubta gabi ahaanba wuxuuna sheegay in aanu aqoon u lahayn gabadhan yar ee Jennifer weligiina aanu hore u arag laakiin habeenkaas isagoo iska socda ayaa wuxuu soo agmaray sikadiisa gurigii Jennifer wuxuuna sheegay isagoo meesha maraya inuu arkay daaqadda gurigan oo furan fadulnimadiisa darteedna uu madaxa geliyey daaqadaas si uu u eego cidda qolkan dhex joogta halkanna wuxuu ku arkay gabadh yar oo keligeed dhex hurudda qolka wuxuuna sheegay in aanu garanayn sababta ku riixday inuu gabadhaas yar qaato sababtoo ah qorshaha ugumuu jirin arrinkani si kastaba ha ahaatee Dennis wuxuu galay qolkii Jennifer intaa kadibna wuxuu soo qaatay gabadhii yarayd wuuna baxsaday kadibna wuxuu ku sameeyey wixii xumaa wuuna dilay sidii uu isagu islahaa wuxuuna sheegay in xitaa markii uu dilay gabadha yar aanu garanayn sababta uu u dilay sidoo kale wuxuu sheegay in dhacdan markii uu sameeyey uu aad uga murugooday oo sababteeda darteed uu isku dayay inuu marar badan naftiisa gooyo laakiin markasta uu isku dayay inuu naftiisa dilo uu ku fashilmayay si kastaba ha ahaatee markii ninkani uu qirtay dembigu uu ku caddaa xukunkiisuna wuxuu ahaa mid diyaar ah waxaana loo xadiday maalintii la xukumi lahaa Jenniferna waxay u dooratay maalintaasi inay noqoto 10 bisha August oo ah isla taariikhdii la afduubtay waxayna sii diyaarsatay oo ay sii qoratay hadal dheer si ay maxkamadda iyo ninkaas hortiisa uga akhrido laakiin hal maalin ka hor maxkamadayntiisii Dennis wuxuu isku dhex eejiyey qolkiisii xabsiga uu kaga dhex jiray sidaasay una ku dilay uu ku gooyey naftiisii
arrinkaasina wuu ka cadhaysiyey Jennifer laakiin waxay aaday qabrigiisii oo ay ka dul akhriday hadalka ay diyaarsatay. maantana gabadhii Jennifer waxay dhashay gabadh iyo wiil waxayna ku nooshahay nolol wanaagsan oo ay la nooshahay ninkeeda iyo carruurteeda. waxay ahayd qisadani mid aad u la yaab badan waxaana ku jira qisadan dhexdeeda arrimo badan oo kaa dhigaya inaad su'aalo badan isweydiiso. sidee bay ku dhaceen waxan oo dhani? wuxuu dhex dhigay ninkaasi gabadha beer dhexdeed, beertaas oo ay quraanjo ku nooshahay. sidee bay quraanjadu u heshay markiiba gabadhan yar oo ay qaniinyada ugu bilowday? sidee bay ku heleen carruurtii yaryareed Jennifer? sidee bay codkeedii dib uga heshay iyadoo xadhkii codka la jaray? qisadan waxaa ku jira waxyaabo badan oo la yaab leh oo isku soo aad-aaday. xitaa marka la eego arrinka Dennis, markii uu xabsigii hore ka soo baxay wuxuu noolaa 6 bilood oo keliya oo uu dhadhamiyey xorriyad. intaa kadib wuxuu ku laabtay xabsigii si uu isagu isugu dhex dilo xabsiga dhexdiisa. waxaa ku jira meesha su'aalo badan iyo waxyaabo badan oo isku soo aad-aaday, laakiin arrinkan wuxuu ku tusayaa awoodda Ilaahay iyo rabitaankiisa. intaasi unu ka egyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. haylooban hadduu ku qanciyey muuqaalku inaad like saarto, subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena Ogaal Cusub. waad mahadsan tahay.